وقابريايا ووطني وقلكاتايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكاتايا ووطني كوحقبان كرايا ووطني musharaxa dhalinyarada ee Mustafa Muuse Maxamed Mustafa Calas oo kamid ah murashaxiinta dhalinyarada ee u tartamaya kamid noqoshada xubnaha golaha deegaanka degmada Burco ayaa maanta ahayd maalintii saddexaad ee ololaha doorashooyinka isku sidkan wakiilada deegaanka Soomaaliland isla markaasna xisbiga mucaaradka ee wadaniga sidoo kale musharaxiinta ka sharaxani ay soo bandhigeen cudud taageero ay ku leeyihiin gobolka Togdheer waxa uu musharax Calas ku soo bandhigay cududiisa taageerayaal kumanaan isla markaasna sitay boorarka kala duwan ee ku xadhan yahay sawirka musharax Calas iyo sidoo kale injineer Gurey oo tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasna musharaxan ku sidkan ayaa waxay socod looga ka soo bilaabeen xafiiskooda ololaha guud iyagoo ku yimi faqaraha khayriyeed ee degmada Burco musharax Calas ayaa kumanaankii qof ee taageerada baaxadda leh hayay waxa uu mahad celiyay sida isu soo baxa u sameeyeen isagoo ugu baaqin 31 May ay codkana ugu heeliyaan maanta waa maalin weyn ilaahay bayna gaarsiiyay caafimaad lagu gaarsiiyay waxaan u mahadnaqaynaa marka koowaad ilaahay waxaan u mahadnaqayaa taageerayaasha ballaaran ee ciidda iyo camaarka ka badan ee ay ummaddu igu tiri xabiibul malaayiinka markay taageerayaasheeda ballaadhnidooda ay ka yaabeen waan u mahadnaqayaa taageerayaasha aan ku leeyahay degmada Burco ee faraha badan way kuwa aan u mahadnaqayaa magacayga waa garanaysaana waa Mustafa Maxamed Muuse nambarkayga codeentuna waa 309 umaan soo faydanin inaan Burco ka tosho inaan Burco u tolaan soo diyaar garoobay waxaan ahay murashaxa daayarta waxaan ahay murashaxa ugu daayar murashaxiinta ka sharaxan degmadani Burco waxaan ahay murashaxa daayarta dhex jooga daayarta degmadani Burco iyo inta hoos timaada waxaan ka codsanayaa inay codkooda maalinta 31 May ay ugu codayaan waa dhammaan daayarta degmadani Burco iyo inta hoos timaada ku nool taas waa iga codsi geesta kale musharax Calas ayaa waxa uu tilmaamay hadii uu ku soo baxo xubinimada golaha deegaanka hankiisu halka uu gaarsiisan yahay inay soo saarin inaan xubin golaha deegaan isu sharaxo kadibna aan noqdo xubin golaha deegaan ee aniga hamigaygu waxa uu gaarsiisan yahay anigoo cudud dhalinyarada cudud ciidda iyo camaarka leh haween weynaha cudud taageerayaasha ballaaran ee degmadani Burco aan ku hoos leeyahay anigoo cududooda ku kalsoon inaan hoggaanka iyo fulinta horumarinta degmadeenani Burco inaan qayb ka noqdo waxaan ku kalsoonahay codkiina wa Khalid Bakeyle wararka fogaanada xorta ee Man TV Burco.